السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة إبراهيم ابن أدهم مع الخباز. تاني وحوي إبراهيم ابن أدهم قصة عجب بدن ورنحمرت إساقي إيا نين فورنا كشقية أما الروتي الدبه. والقصة دان أفرسو إبراهيم ابن أدهم سند بو سو حجيي جماعة سيبو صور راعي حاجك كدبنا وحو صوب وقضي مساجد كنبوة مدينة كيالة الرسول صلى الله عليه وسلم كدبنا صلاة عشاية أيو هالكايمد صلاة مركلة كدي أيو مساجد تسكرح فريستي isagoo tasbiixdiisa iyo dikrigiisa ku jira isagoo sida u fadhiya baa dadkii mushrifiinta ahaa oo masaajidka nadaafadiisa iyo tartiibkiisa ka shaqeeya baa yiri soo bax ilaan habeenkii dadka waa laga soo saaray oo hal mar baa masaajidka la nadiifiya habeenkii ugu horeysay oo masaajidka Madiina aan dhex joogay yaani ma u maleynaynin in dadka laga saaro oo waxaan moodayaa habeen iyo maalin in la iskaga dhex jiro laakiin waxaan xusuustaa in laga soo bixiyay aniga naftayda in laga soo saaray ayaan xusuustaa anoo ku dhex jiro waqti dambe ay tahay baa la yidhi waa la nadiifinayaa ee ka soo bax طيب المهم إبراهيم waa laga soo saaray markuu xogaa isku adkeeyay wuxuu yiri maad idaysa hal la taraktani abitu huna maad idaysan halkan aan caawa iska seexdo wali guri maan diyaarsanin albaabka korka iga xidha salaada subax markaa soo noqotaana halkaanaad iga heli doontaan insha Allah taala anoo jooga waa diideen iyaguna waxay ka baqayaan masaajidka inuu dhib u keeno ayay ka baqayaan kadib ninkii markuu xogaa ku dhaga adkaaday niman kale u yeedhay wayna qabteen marada intay qabteen bay xoog ku jiideen oo ka soo saareen banaanka ayay fadhiisiyeen masaajidkiina way xidhay meeshii isagoo iska fadhiya meel u dhaqaaqa ma yaqaano magaalada caawa ugu horeysa waa nin sheekha laakiin dadku garan maayaan baa meesha soo maray ninkii baa arkay ninkan meesha fadhiya wuxuu yiri niyow may raacaysa aniga caawa ila soo seexo haya bina waa ina keen anigu ninkana uuba rabaaba wuu iska raacay طيب wuu raacay dhaxda marka la sii marayo ayaa wuxuu yiri niyow waxaan ka shaqeeyaa khubsiga iyo kibista iyo waxaan la yiraahdo muufada ama kibista rooti canjeero waxaan umada loo karayo laxoox sabaayad almuhim waxaasa maaragtay ayuu ka shaqeeyaa oo heshiisu tahay habeenka oo dhan uu shaqeeyaa wuxuu yiri habeenka oo dhan waan shaqeeyaa subaxiina waxa qaada caruurtayda ayaa soo iibisa marka sariir baa ii taala iska seexo waagu markuu bariyana guri kareyso orod magaalada gal waayahay buu wuu soo raacay markuu soo raacay habeenkii oo dhan wuxuu yiri ninka baan fiiriyaa mar alla markuu hal rooti adabka ku ridayaba bismillaah buu leeyahay mar alla markuu ka soo bixinayana alxamdulillaah buu yiraahdaa sidaasuu ku waday riwaayadka qaar waxay leeyihiin wuxuu lahaa astaghfirullah markuu gelinayay iyo markuu astaghfirullah say doontaba ha noqotee ninkan Ibraahim ibn Adam wala yaab wuxuu niyow dhikri kale iyo wax kale oo lagu ducaystiyo wax kale oo la akhriyo soo ma taqaanid wuxuu yiri niyow mundu 20 caam 20 sano anigu inta baan aqriyaa markaan gelina bismillaah baan dhahaa markaan ka soo bixina alxamdulillaah baan dhahaa wuxuu yiri hadaba wax raad ah oo noloshaada ay ku samayso aragtay ma jira wuxuu yiri ha wax kasto on ilaahi weydiisto wuu isiyaa buu Allah subhanahu wa ta'ala illa hal arin ma ogi waxa jirta buu marka hal arin oo 5 sano hadda u dambeysay aan ilaahi weydiisanayay oo wali aan la isaynin maxay tahay wuxuu yiri sa'altu Allah an yajma'ani bi Ibrahim ibn Adham ajlisu ma'ahu wa astafidu min ilmihi waxaan 5 sano u dambeysay ilaahi weydiisanayay إلهي إنه إلى كل ميو شيخ اللي هذا إبراهيم ابن أدهم سأن علمي وقعتون وأكفرستو أيان إلهي ويدي سنة وحيا عجبت بعض مركب وحا قصلي إبراهيم ابن أدهم با قصلي وحكوري يا أخي والله إنك أفضل أذيك أيا كفضل بدن عند الله من إبراهيم ابن أدهم والله أذا كفضل بدن إبراهيم ابن أدهم وحكوري ننكينا اتق الله يا رجل ninkan lama garanayo wuxuu moodayaa nin miskimeelaha ka soo wada wuxuu niyow ilaahay ka baqniyo wa ayna ana min Ibrahim ibn Adam xaqeen anu Ibrahim ibn Adam ka gaari kara dhalika ar-rajul al-alim al-wari' ninka caalimka ah ee xalaal meerashada qoodashada badan
ummad oo dhaniba ay taqaano cilmigiisa xaggan ka gaadha wuxuu yidhi wallaahi ya akhii إن الله قد جاء لك بإبراهيم ابن أدهم مجرورا من ثيابه حتى ألقاه عند قدميك بلوفرس والله يا أخي إلهي ما أنت وحكوك كاني إبراهيم ابن أدهم كاد كدو عيسينيسي أو لجيديو مرديس لغسو جيدي أيا قمدا هاقا لغسو طوري أو إلهي هل كانوا كوسوك أنا إبراهيم ابن أدهم أيان أيبو الله أكبر فتعجب الرجل نينكي وليابي وحمد الله وشكر إلهي بكو حمدي سيد الدعاء الله سبحانه وتعالى وأجيبي الله يو دعاءنا يبريد أن كجرنو الله نجا أقبل دعاءنا إنه أجيب الله صالحين تا يا زمرة الصالحين والشهداء والمتقين الله نقدر إلهي سبحانه وتعالى ضدك أنبياء إلهي إيه أنت الله كبغضنا الله إن الله حشريه وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.